Asalaamu calaykum soo dhawaada muuqaalka maanta waxaan kaga hadli doonaa baabuurka yar ee ilmaha socodka ku bartaan ilmaha faa'iido ma u leeyahay iyo waxaan kaga hadli doonaa faa'iido uu leeyahay iyo dhibta uu ku keenayo ilmaha intee badan muuqaalka taas ayaan kaga hadli doonaa insha Allah soo dhawaada haddii ay tahay markii kugu horreysay aan soo booqataa subscribe noo saar kambalelkana furo si fiidiyowyada cusub kuu soo gaaraan haddii familka ka tirsantaana like noo saar asxaabtadan u sii share gareyn baabuurkan yarka ah ilmaha ay socodka ku bartaan oo xilliga ay soo gaaraan ilmaha inay socod bartaan oo kale hooyooyinku soo gadaan oo ilmaha socodka lagu baro ilaa iyo 4 dhibaato oo ilmaha u leeyahay ayaa muuqaalkan kaga hadli doonaa insha Allah muuqaalkan 4 dhibaato uu leeyahay ilmaha uu ku keenay ayaan kaga hadli doonaa insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo waana warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka Mareykanka ee caruurta warbixin ay soo saartay waaye dalal badan oo caalamka kamid ahna waa laga mamnuucay oo looma ogol in hooyooyinka ama la soo saaro kale ama suuqyada lagu iibiyo si hooyooyinku u gataan oo kale mamnuuc ay ka tahay in suuqyada lagu iibiyo wadamada qaar marka insha Allah muuqaalka kaas ayaan kaga hadli doonaa waxa dhici karta in hooyooyinka qaar oo kale ay dhibaatooyinkan aan sheegin aysan la kulmin hore ilmo ay u sameysteen aysan la kulmin waxa dhici karta in hooyooyinka qaar ay la kulmeen caadi ahaan caafimaadku waxa uu ka hadlayo ma ahan 100% waxa ay dadkan ka wada siman yihiin laakiin wuxuu ka hadlaa inta badan waxaan maxay dhibaato leeyihiin waxaan dhibaatadiisa iyo manfaacadiisa tee badan ayuu caafimaadka ka hadlaa marka ma ahan muuqaalka inaan leenahay cunug kasto la saara qasab 4 calaamadood way ka soo baxayna dhahayna ma ahan 80% 90% ilmaha 4 dhib ayuu ku keenaa waa sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka caruurta ee Mareykanka ee ka hadashaba insha Allah marka soo dhawaad waxaan rajeynaynaa ka faa'iideysan doontiin dhibaatada koowaad oo cunuggu uu leeyahay ilmaha xilliga ay ku jiraan socod baradka dhibaatada koowaad oo cunuggu leeyahay waxa waaye in cunugii murqaha ilmaha markii ay soconayaan waxay ka socdaan inta dambo ayuu qofka bini'aadamka ka dhaqaaqa inta dambe marka laba loo kala qaadaa waa inta qaybtan ka bilaabato sinta ilaa iyo jilibka oo qaybta koowaad ah iyo jilibka ka bilaabato ilaa iyo cunug intuu dhulka uu ka dhigayo labadaas ayay u kala qaybsan tahay marka cunug lagu fadhiisiyo baabuurkan ilmaha socodka ay ku bartaan cunugii wuu fadhiyaa lugihiisa dhulka gaarayaan murqaha marka lugaha waxa ku jira murqo lafaha kaliya ma aha waxa socda murqahan iyo lafaha iskaashada way wax soconay hadii qofka murqihiisa isa shaqaynaynin qofka socodkiisa ma dheelitirmaayo oo ma yeelanayo tawaasun ma yeelanayo marka murqaha maadaama cunuga uu fadhiyo baabuurkan uu ku fadhiyo jilbaha wixii ka hooseeya murqaha ah way dhismayaan oo waxay noqonayaan murqa caadi ah oo sida loogu talagalay dhismooda u socdo shaqadooda u socoto dhulka dhigmayaan waaye marka koowaad laakiin murqaha ka soo bilaabadan sinta ilaa iyo jilibka ka imaanaya cunug wuxuu ku fadhiyaa baabuurkii ma dhismayaan marka waxa imaanaysa cunugii baabuurka markuu ku socdo asagoo fadhiyo lugaha asagoo uga nuxnuuxina baabuurka uu socdo cunugku wuxuu isku malayaa inuu asaga socdo hadhowti marka waxa dhacayso cunugii markuu yiraahdo socon karta hooyada cunugii baabuurka ku orday ay aragto in baabuurka ka bixiso dhulka ay fadhiisiso ay sira marka cunugii waa socon karaa maxaa socana cunugii siimaha ilaa jilibka murqihii ahaa oo boodiyaha iyo ku xiriirsana dhan way jilcan yihiin ma adkaanin oo cunugii ku istaagi karo jilibka wixii ka hooseeyay murqihii ahaa way fiican yihiin korinshihi loogu baahnaa way sameeyeen way adkaadeen cunugina ku socdo rabaa marka tii hoose oo cunugii been u sheegtay hooyadana been u sheegto tostay inuu cunugii socon karo iyo kuwii kore oo ku fadhiyeen kursigii soomankiisa ku fadhiyeen oo aan socon karin oo adkaanin hadhow cunugii istaag markuu yiraahdo waxa ka dhumay dheelitirnaantii لأن مرقها هو سوى إنه كوه كره عليان كوه كره ما أتكانين كوه هو سوى حبي معين كلام مركب عنقو حكر ما يدير ترنانتي وعنقو حب اللعبة دح احتراب بدن أيوب باللعبة وحين كوه قاعدنا وقت كلا أو كيك بدن إن عنقي مرقهن كلا بودوين كالإسمان وقت أي قاعدني تنكواد وقلبتاس وعنقي إن لوهيسي قيبنا مرقيه الإسمان قيبنا إيسان اسمين تاسوا دباتة كواد دباتة اللواد وليه وحاواي عنقي مركو سعانايا وإنه أركار لولك وإنه لولك فيريا si wixii dhulka yaalo uu uga wareega oo maxaan lahaa uu haduu ka wareegi karo kale ka wareega ama ku istaaga ama ka fariistaadi wixii wax weyn yihiin kale uusan ka wareegi karin inuu ka fariisto cunuga baabuurka markuu ku jiray waa iska ordi jiray bis ma yaqaano cunugan dhulka fiiriyo hadhowta marka baabuurka ka bixisad cunuga socod inuu ku bartay aragtid dhulka
cunuga fadhiisisid markuu socays yiraahdo dhulkiis ma fiiriyahay hortiis oo fiirina caadi u socona cunuga wixii ka hor imaado inuu dardaro marka dhicitaan tiro badan yeesho ayaa imaanaysa dhuti in dhicitaan tiro badan u yeesho ayaa ku imaanaysa cunugi maadaama uusan baranin dhulka fiiri liana qalabkan ayaa u sheegay been oo ka dhaadhiciyay cunugi inuu socan karo taas waa qaybta labaad oo ah in cunugi uu dhibaato kala kulmo baabuurkan ilmaha socodka ku bartaan tan saddexaad waxa waaye qalabkan baabuurka ilmaha socodka ay ku bartaan cunuga markuu ku jiro kale control ma lahan guriga gees ayuu gaaraa waxa laga yaabaa jikada ayadoo lagu jirin cunugi inuu galo gaaro maxaa la dhahaa meesha hooyada cuntada ku karinaysa uu gaaro meel waxyaalo kulul ay yaalaan meel waxyaalo qabow ay yaalaan oo kale cunuga inuu gaaro ka joog uusan aqoonin wixii oo dhan uu dardaro dhibaato ah waa laakiin cunuga markii uu asaga caadi ahaan garguuranayo kale ama asaga uu socdo waqtiga ku qaadanay waxa laga yaabaa insha Allah cunuga Ilaahay badbaadiyo ayaa badbaado cunuga maadaama asaga lugihiisii iyo garguuradkiisii iyo socodkiisii asaga iskontarolayo inuu meeshas gaaro waqtiga qaadanay waxay u badan tahay inuu qof arko cunuga sii socdo laakiin baabuurkan sii jeesata bisay kaaga xirantahay asaga la ordaa cunugi intii guri shamiinday oo kale ama mutuleel aad diganta oo kale cunuga asaga isla markiiba intuu la hada waxa arkay cunuga waxa ka joog markaa sii jeesato waxa arkayso bulshada korkeeda taagan iyo meesha ku korko cuntada ay ku karinaysay marka waxa qurux badan in baabuurkan hooyooyinka iska dhaafaan cunugiisa asaga naftiisa ugu kalsoonaado uusan ku kalsoonaanin wax been ah asaga isbaraa inuu socon karo inuu istaagi karo kale inuu asaga isbaraa tan afraad oo ugu dambeyso oo ah dhibaatada ay ku keenayso baabuurkan ilmaha dhibta ugu keenay tan afraad ugu dambeyso waxa waaye maadaama cunuga baabuurka uu ku jiro fadhigiisana uu badan yahay oo just cagahaas uu ka nuxnuuxinayo cunuga waxa dhici karto in cunugi uu ku yimaado tashawuh ama taqawus uu ku yimaado saaqinka cunuga in wax yar godladaan oo kale godlashayaan dhihin way godmayaan oo kale dad ma aragteen oo markay soconayaan oo kale lugahooda oo gudan yihiin oo kale lafihii iyo wixii ay banaan ku bixin qaybta labada dhexdooda meesha ay ka kulmi lahaayeen oo kale god ay ka yihiin oo kale ay ilmaha qaar ku keentaa taqawus iyo tashawuh hal laha Soomaali ahaan si fiican u sixi kari in cunugi uu lugaha qaybta lugaha meesha istaaba lahayd oo kale cunugi god ka noqdo oo qaybiyo banaanka xigo cunugi ay koreeshiis oo bato kale maadaama uu fadhiyo cunugi lugihiisa taas ay soo rimaanayaan oo kale in lafihi ay banaanka koraan qaybta gudaha cunugi uu god ka yeesho kale hadhowtiyo kale oo u baahdo cunugi in qaliin lagu sameeyo ayaa dhici karto in qaliin lagu sameeyo ayuu u baahan kara hadhowti marka afartaas qayb ayaan ku soo koobaynaa walow qaybta dambe si fiican Soomaali ahaan u sheegan waxa rajaha laakiin insha Allah ina fahanteen afartaas qodob ayay lagu soo koobay dhibta ama qaybta uu leeyahay baabuurka ilmaha socodka ay ku bartaan marka hooyada ayada joyska ama qiyaarka iskale ayadoo og afartan qodob hadii ay go'aan ku gaarto hool fuudeys ahaan in cunugi baabuurkan ay ku rido insha Allah inuu Ilaahay waxba kala kulan siinin ayaan Ilaahay ka rajaynaynaa insha Allah hadii hooyada ay go'aansatay inay iska diiso cunugeeda si cunug asaga naftiisa kalsooni isugu qabo asaga oo wax u barto oo cunug noqdo qof asaga naftiisa ku kalsoon ayadana ay ku kalsoonaato in cunugiisa ayada asaga oo wax bari doono insha Allah hadii iska dhaaftana alxamdulillah waayo oo cunuga caafimaadkiisii iyo kalsoonida naftiisa taas ayaa u khayr badan insha Allah ma aha wax illa qofka iska deel lahaay dhibta uu leeyahay qofka waa loo sheega asaga go'aankiisa kale inuu qaato iyo inuu san qaadan laakiin waxaan rajaynayaa insha Allah in fiidiyowan ka wada faa'iideysateen hadii markii kugu horeysa aan soo booqatay ta subscribe noo sarga marhalkan furo si fiidiyoda cusub ku soo gaaran hadda familka ka tirsan taana like noo saar asxaabtan u sii share gareyso dhawaada